نبغر عيا جري جري قصر بودست قصر مدة با قصر قال دساي مالنتي قصر كي فرح لوغا قاداي عيا لدوان دمينا قال نغا غدو جدك وسي مريي اي قصر كي سلو مريي اقل يرو عريش وبول عيا كدسن عريش با كدسن بقر كي باي اقل كان عياله وعلى اسلام دقا عياله يا اسلام دقا عياله اقل كان اقل كيبو يغا بهدلي عقف مريو قادم والقبي يسوي بوركا فورمي صلاة الظهر هاي بجوك وايتي مدة قلبتي بيتي مدة ماشي وحي أركي وضع لك دقيقة ماشي مركاسي حقا كوريكت ويدي أقل كيدي حقا نقوريكت ويدي وحتى قرية وحكاري ويدي أسكر باوتي مدة وحال ويدي كدقاق ماشي أيام مركا بيتي مانيقا قلدن مسدول كيبا للرقي ما يقولك اللبر رقنا دولك واسح وياني حكا مغشيقا للويدي مركا بيت ناقل عريش وبولا ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday ma aragteen waxa la waa war laadahay saaka waa lagu waayay boqorkii baa yimid oo yiri aqalkaygii fuul xumeeyay qaado oo ma aragtaan kala tuura dana waa la qaado buurtaas laga tuura aqalkaasi oo islaan miskiinada oo daaweyn gacmaha cirka u taagto waxay tiri yaa rab waadigi yiri ma inni haramtu dhulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أنا ظلمك اسكحر بابا إلى هيري إله خالق الرزاق أياكل أبوامها يقبض ظلمنا يوم ظلمك دحدنا حرام ما كي له أسكحب قدبنا با إلى هيري يا ربي أنا حدان مغنى أظلم يا نتزوج المرك الله ظلمنا يي ما هذا دونك يقربوا إليه كتير دعابنا ما يدعيني أنا يا سيد كنت عايزتي لكن وهذا قلبك كصوبها وحيتري يا رب ميانا جوجن بكتر مركي حولاي استا لو غلاي اقل كيغا مركا بورتا لغا تورايي ادو ميانا جوجن سودغي يري ما انيغا ظلمك اسكا حرم مسلا ظلم ادو مانا جوجن الهي تبارك وتعالى وعادل ومنتقم هو ارغد ادومي سيلاهي دبيل انتو الهي كيني قصرغي انت اوسنا لدسايي ضميل با إلهي انتو قال سجر بوطن إلهي دراجي سكته لذلك ظلمك وحرام ويا أمته حتى ظلمك وغنتنا أمته سوي دونتا حتى أمته عدالة إلى للسنة أمته سوي ريق دراتاي ويبركونا وينجرتا لكن ولا الكي حدرقو نبي صلى الله عليه وسلم مسكيت كسنين باكا سركعي باهبو نبي غورتي سكو شيكتو يري إني رجل مجهود نن باهي أي هاي سؤادو باهم بان هي الله مرتقادو markaabuu nabigu halkaan ii fariiso saxaabigu nabigu daruuri ordo reerahaygii bal wax la quuto inay yaalin iga soo ogaada sagaalkii aqal nabi maxamed uu lahaa baa la soo maray xaasaskii nabiga hal jawaab kaliya laga soo helay jawaabtaasi maxay ahayd la walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma haweeney kasta waxay soo sheegtay tiri ilaaha xaqqa diinta xaqqa kula soo saaray baa ku dhaaranay aqalada yada baad la cuno afka la galiyo ma yaalaan biyo la caba mooyaan سجال أقل بل لقوت ما يالو حيا لكليا بيوم إنك أنا ما أنت بلدن يا سنة ددن وحن عني لهي إنك وهاي السنة دتك هذا أنا فقري كبقيان مرة هذا قفك فقري كبقيان وفقير وقوم ثم الناس في خوف الفقر الناس في فقر في خوف الفقر مربطته هذا فقر كبقيان وفقراء سقال كي قريه النبي محمد والهاب الله صومري جواب كليا لغا سو هله جوابته اله حق كل سو ساري با ku dhaarane baad la cuno aqalada ma yaalan biyo la caba mooyaane marka uu nabigu fariist wuxuu warninka martida yaa ii marti qaaday buu maanta yaa ii marti qaadaya Abu Talha saraka cuu ana marti qaadaya raac Abu Talha reerkiisa waxa yaala kama warqabo guriga markuu soo galay ninku dibaddu jooga gobashiibu u dhigay hal cindaki shay wadna wax la cunama haysa markaa bay tiri may arurta yar cashadoodii ma wax kala aqalka ma taalo arurta cuntadoodii wax kala aqalka ma yaalaan markaasuu ku yiri ciyaalka si uu bal u yar ciyaarsiyo seexiyo intaad iyaka ugu tala gashay ninka dayfka soo galiniye isagaan hor dhigaynaa لأن مركو صوغ لأن انت هردقنا إساقا إنك فينوسك ينو دمي وأقلكم مقدي هالنقضو لبديننا أفكار دقاجين نايو سدد وحقنا
ayaan iska dhigaynaa buu ku yidhi isagu inta ha cune ilaa ninkii dayfka hadduu arko wixii aqalka yallaba in isaga la hor dhigay oo dadkii reerka lahaana ay bilaa cunno yihiin ay bilaa casho yihiin kuma dhacaya da inuu cuno markaasaan u raalli gelinna buu yidhi faanuuska demi isagana waan fadhiisin waan hor dhigi adigii aniguna hee wa ariihi annaa na'kulu buu tus si waxaan wax cunayno afka han dhaqaajino ha shaqrayno ubadkii gaajay ku seexdeen saxaabiyadii gaajay ku seexatay saxaabigii gaajo ku seexday intii ubadka loogu talagaleen wuxuu hor dhigay reer bani israa'iil baa ka mid ah 40 sannadood waxay cunayeen almanna wasalwa xeeb cunto bini aadan cuno oo dhan ay ku dhan tahay baa samada uga imanaysay bilaa tacab nabi ciise calayhi salaam qoomkiisii waa kuwii ku yidhi waid qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryam hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min alsamaa qaala ittaquu allaha in kuntum mu'miniin qaaluu nuriidu an naakula minha watadma'ina quluubana wanaclama an qad sadaqtana wanakuuna calayha min ashaahidiin waxay yidhahdeen ma karaysaa inaad adigu rabbiga aad noo weydiisid oo samada lanooga keena maaragtaane xeedhaasoo ay ku dhan tahay cuntadii bini aadan u baahnaayuu cunayey markaasuu ku yidhi ilaahay ka yaaba haddaad iimaan leedihiin hadalka ha ku hadline ilaahay ka baqa markaasay yidhahdeen nuriidu an na'kula minha waxaan ku weydiinaynaa wax kale maahee waxaan rabnaa inaan cibaadada aan u bambaxno oon xeedhana cuntada aan ka cunno qalbiga iyo iimaankuna noogu xasilu noogu ziyaado inaad run noo sheegayso oo risaaladaadu ay xaq tahayna aan garanno waa mucjizo weeyaan oo kugu sii sadaqno ya maragna aan ka noqono inaad tahay nebi la soo diray oo warka uu sheegayo uu yahay war saxa adna ilaahay buu baryay markaas 3 maalmood buu soomay baa la yidhi mixraabka ayuu galay mixraabka ilaahay buu baryay siduu u alla baryay baa la yidhi garkiisii baa laabtiisa ku dhegay baa la yidhi nabi ciise calayhi salaam maalintii afraad markuu reer bani israa'iil iskugu yeedhay ayuu ilaahay baryay xeedh ayaa samada laga soo dejiyey bayna khamaamatayn 2 daruurood dhexdooda taalla oo maro cadna maaragtaane mandiil masar maro cadna la duldhigay ayaa samada ka soo degtay kullamaa uu nebi ciise uu duceeyo ooyaba way soo dhowaataa leanna hortiisii baa ilaahay dhigay markaasuu nebi ciise calayhi salaam wuxuu ka qaaday markaa maradii buu ka qaaday cuntadii bini aadan uu cunayay oo dhan ayaa halkaa ku dhammaystiranoo waxba kama maqna baa la yidhi markaasuu ku yidhi haya kulu kaalaya cuna buu ku yidhi waa kane laa na'kulu bay ku yidhahdeen xataa ta'kula cuni mayna ilaa aduu aad ka cuntid mooyaane markaa buu yidhi anigu ma dalbin anu waan garanayo waan yaqiinsanahay ilaahay inuu iquudinayo inuu ilaahay siduu doono bini aadanka uu ku quudin karaa waan yaqiinsano waan ku kalsoonahay nebinimadeedana anu waan isku kalsoonahay diintanan inila imadan xaq inay tahayna waan ku kalsoonahay ininkaa iga dalbay mucjizadaase oo ininkaan aniguna inii dalbee kaalaya cuna buu ku yidhi markaasay yidhaahdeen cuni mayno waa ka baqeen bale way cabsadeen waa xeedh intay la eg tahay maaha intan waxay la eg tahay markii keliyaba baa la yidhi hee 7,000 oo qof baa hareeraha intay ka fadhiisato birraaxa weliba ay u fadhiistaan intay cunaan bay ka kacayeen baa la yidhi 7,000 oo qof eedan markaasuu yidhi haddaad ininku cuni weydeen aqaladiina ku noqdo oo qof allii qofkii niga jiranaayo xanuun u hayay soo kaxeeya buu ku yidhi dadka xanuunsan wax walba waa lagu dayaa moogta iyo kii way ka baqeen laakiin kuwii xanuunsanaa bay u yeedheen baryahan dambaa markii jamaacaadka ay dacwaddu ay ziyaaday ilaahay camalkii uu dhaqaajiyey yaad arkaysaa nimanka ganacsatada mid baa kuu keenaya mid qurbaha ku soo kululaaday mid qaadkii ku kululaaday mid shaqala'aantii ku kululaaday markaas warbalkan kaxee marka adu maxaad u raaci weyday anu mashquul baana isaga kaxeeyaa soo hagaage sidaas oo kale maa'idadii nebi ciise calayhi salaam dadkii caafimaadka qaba way ka baqeen markii la yidhi war bal kuway niga buka un keena haddana nin walba ula ordo uu keenay baa la yidhi deedna markaasuu nebi ciise calayhi salaam dadkii meesha la iskugu keenay baa la yidhi qof walba waxaa la yidhi kii bukay markuu cuntadii uu ka baday meeshii uu ka bukay baa ilaahay caafimaad ka siiyey kii indhaha lahaa indhihii baa u furmay kii dhagaha lahaa dhagihii baa u furmay kii maaragtaane lugiga gacan baktida gacantii lugtii baa u dhaqaaqday kii waa maskaxdii baa u soo noqoto u fayoobaaday
markay arkeen aayadaas ay yiraahdeen haddaan cunaynaa markaasuu nabi ciise ku yiri shuruud baad ku cunaysaan shuruudaas waa maxay calooshiinu intay qaadi karto baad cunaysaan wax ziyaada ku gurimaysaan shardiga labaad waxa weeyaan weelal iyo kiishashitood hoosta ku soo qaadataan cuntada guranimaysaan oo xagga dambe dhiganimaysaan haddii aad khiyaanada la timaadaan tay nigu dhacdo waad ka sheekayn doontaan buu ku yidhi ma bini aadan baa laga karis dabamaris kiishash bay soo qaateen baa layidhi way iska eegaan nabi ciise way ku guraan markiiba waxaa layidhi waxay xeedhu cajiib ku ahayd 7,000 oo qof baa markiiba dul fadhiisanaysay way ka kacaan casuumad markii lagugu yeedho ee aqalka dadka lagu casuumadeeyo uu yar yaraado qaar baa meel la fadhiisiyaa soo maha weelasha qoladii hore ay ku cuntay ma la dul fadhiisin mise waa laga rafici ya waa laga qaadi weelal cusub baa loogu keenay waxaa la yidhi xeedhan lagama qaadayn inta kuwani kolkay kuwani ka kacaan inta ay sii jeedaan ee kuwa kale ayse soo bedilayaan ayaa ilaahay sideedii ku soo celiyaa ilaa aayad waxaniye lagama taaban bay ku hortoodba way cunaan dadna markay qishkiya khiyaanadii ma bini aadan baa deynaya khiyaano iyo qish ay bilaabeen cuquuba ku dhacday baa leedo ilaahay wuxuu ka dhigay daayar iyo khanaasiir buu ilaahay ka dhigay nin ganacsada ah ya badeecadii uu soo rartay baa la sheego la yidhi markabkii badeecaddu ay kuu saarnayd uu degay markaasuu yidhi alxamdulilaah 7 cisho kadib baa lagu yidhi markabkaagii ma ahayn markabkaagii dekaduu soo galo galabtuu soo galayaa markaasuu yidhi alxamdulilaah markaasaa lagu yidhi labadaa alxamdulilah ee tidhi bal noo macnee maalintii hore la ii sheegay la yidhi masiiba ku dhacday xoolahaagii oo markabkaagii uu degay qalbigaygaan fiiriyey buu qalbigayga wax isbeddela kuma dhicin buu qalbiga aanan isbedelin baan ilaahay ugu mahdiyey buu waxaan arkay buu qalbigayga oo aan ku tacalluqsanayn badaacadayda iyo xoolahayga waxaan arkay qalbigayga oo ku tacalluqsan ilaahay oo qalbiga yaqiintii iyo kalsoonidii ku jirtay baa markiiba ilaahay soo igu tiri awalwalin ilaahay baad haysataa marka qalbiga saliimka ayaan ilaahay ugu mahdiyey buu hadda markaad ii sheegteen ilaahay baan ugu mahdiyo de ilaaha nicmo xoolahayga ii soo badbaadiyey baa uyaan ugu mahadinayaa buu nicmada ii keenay Khalid ibn Sa'id radiyallahu anhu wuxuu ag yimid nabigeena sallallahu alayhi wasallam daartii arqam bil arqam buu yimiday wuxuu bilaabay marka nabigeenu ag fadhiyo nabiga quraanka ka dhageysto quraanka nabiga ka barto markaas lagu yiri aabaha baa sankaraad oo buka markaasuu u yimiday aabihii soo ziyaartay waa gaal aabihii mushrik laakiin diintu islaamku ku oran mayso ha u samafalin kuma oranayso bal waa inaad u samafashaa hadduu gaal yahayna hadduu islaam yahayna kaba sii daranba deedna markaasuu dul yimid aabihii oo sankaraada oo walaalihiina hareeraha ka wada joogaan markaasuu yidhi ma Khaalid baa ninkay dul taagan haaba waa Khaalid weeyaan diintii Maxamed ma ka soo noqotay ma kama soo noqon kana soo noqon maayo buu ku yidhi wuxuu yidhi haddii xanuunka aan ka kaco ilaaha Maxamed ma ka lagu caabudi maayo daga gaalnimada ka taagneedeega markaasuu yarkiisdaa u eegay aabihii intuu qiblada u eegay sii jeestay buu yidhi ilaahow aabbahay xanuunka ha ka kicin buu yidhi mowqifkaaba hadduu aabbahay weli uu taagan yahay oo cadaawadda ilaahay iyo rasuulkiisa uu hayo isagoo sankaraada uu leeyahay haddaan xanuunkaa ka kaco ilaaha Muhammad ma ka lagu caabudi maayo hadduu la soo taagan yahay ilaahow xanuunka aabbahay ha ka kicina ku qaadbuuri ku dil kama wakicina ku dhacay habarka dhalinyarada waa kaas magaalada Makka nin dhalinyaro ah oo ka qurux badan oo ka xaraga badan oo ka dhar fiican ma jirin bal zamankiisa waa intuunan islaamin ka hor markaasaa gabdhaha Quraysheed ay oran jireen caawa Muscab ana la soo haasaaway ayaam al-jaahiliyadi waa intay diinta dadka soo gaadhay markuu islaamayna hooyadii oo maal qabeenada uu ka dhaxbaxay ehelkiisii buu ka dhaxbaxay wuxuu ag fadhiistay nabigeena sallallahu alayhi wasallam
markaasay hooyadii leedahay ka soo noqo diinta maxamed wax walba waan ku siina may buu leeyahay ka soo noqon maayo wax kale waan ku qaban hooyay laakiin diinta islaamka ka soo noqo kama yeelay taas iska noqo aqalkaaga iska fadhi ilaa uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray markaa nabigu madiinata almunawwara muqri baa la odhan jiray baa la reer madiina markay nabiga u yimaadeen la baayacoodeen ee la beecadii ay dhacday ayay yidhaahdeen nebi allah qof qur-aankana bara nagu dar markaa nabigu muscab buu ku daray bale muscab bin cumeer madiinata almunawwar uu yimiday beer buu fadhiistay beer dhexdii halkaabuu dadka qur-aanka ku barayay geed hoosta oo qof dadka intoo loogu keeno halkaabuu dadka ku islaaminayay magaaladii madiina nebi maxamed wuxuu yimiday aqal magaalada madiina ka dhisan ma jirin iyadoo diinta islaamku ay gashay oo reer madiina wada muslim yihiin oo muscab bin cumeer uu dadaalka isagu uu la yimiday ayuu nebigu magaalada madiina ku yimid oo lagu soo dhaweeyey markii madiina uu nebigu yimiday dowladdii islaamku madiina ay biyo dhigtay ayaa cali iyo nebigu isag fadhiya ayuu muscab halkaa maray nebiga hortiisa isagoo maaragtaanay mara wuxuu sitaa markaa yar googo-an oo baaliyo oo karkarma yeelata karkarmaha waa taqaanaa soo marada intay duugowday gooday baa maro kale la soo qaaday lagu dhajiya markaa buu nebigu ooyay calayhi salaatu wasalaam markaa cali baa ku yidhi yaa rasuulallah maxaad la ooyeysaa bal ii sheeg markaa buu nebigu ku yidhi yaa cali waxaan xasuustay muscab maad arkaysaa ninkaa dhallinyarada maad arkaysaa haa waan arkayaa waxaan xasuustay buu nebigu yidhi intuunan islaamin quruxdiisii iyo xaragadiisii iyo dharkuu xidhan jiray ayaan xasuustay buu yidhi iyo nolosha maanta uu ku nool yahay laakiin nolosha maanta uu ku nool yahay dhar la'aanta iyo nafaqa darrada ka muuqata ilaahay rasuulkiisa kaga raaliya buu rasuulku yidhi ilaahay rasuulkiisa ayaa dhallinyarada islaamku sidaasay ahaayeen dee maalintii uu dhintayna maro kafan looga dhigan la waayey maro yar waxaa go' yar baa loo helayoo marka xagga sare laga saaranayo lugaha ayaa noqonayay marka xagga lugaha laga saarana maradu xaggan madaxay ka aguugaysay ilaa uu nebigu yidhahdo madaxana ka saara lugahana maaragtaana geeda soo qaadoo kaga kafan uga dhiga saasaa lagu aasay aragee noloshoodii adduunyada iyo dhallinyarnimadoodii halkaaba iska dhigeen ilaahay rasuulka inay raalli geliyaan bay qaateen ar maxay qaateen ilaahay rasuulka inay raalli geliyaan seef buu nebigu soo qaaday dagaalkii uxud ayaa iga qaadaya buuli nin walba wuxuu aniga markaa buu nebigu ayaa xaqayga marin markaaba gacmihii la noqdeen asxaabtu abu dujaana ayaa yidhi ana xaqeeda marina ii dhiib markaabuu u dhiibay nebigu sal alla ly slam xaqeeda ii sheeg mushrikiinta hee qoortaad kaga jari galka ku celi maysa zubayr binu cawaam oo nebigayna ina abtigii ahaa oo 10kii jannada loo bishaareeyey ka mid ahaa ayaa yidhi maalinkaas waan yar cadhooday buu yidhi markuu abu dujaana yidhi aniga nebi allahu ii dhiib anna xaggaabaan gacanta ka soo fiiqay buu yidhi intuu nebigu sidaa ii eegay buu yidhi ima dhiibin abu dujaanu nebigu u dhiibay waxaan isidhi nebi maxamed adoo ina abtigiiya muxuu seefta kuugu dhiibi waayey uu abu dujaano ugu dhiibay markaasaan isqabtoon yidhi kollay nebigu waxyiibuu ku socdaaye bal ha eegtid ninkan wuxuu sameeyey dagaalkii baa bilaabmay mara yaroo cas buu la soo baxay oo halkaa madaxa ku xidhay marka abu dujaana samaak binu kharasha buu ahaa magaciisa soomaaliya markaas maradaa carabtu hadday xidhatan maradaa cas hadday xidhatana waxay ka dhigan tahay waa geeri dhimasho unbaad iga maqlaysaane nolol buu ku soo noqday ha iga sugina saxaabadu markay arkeen abu dujaana oo maradaa la soo baxoo xidhay bay yidhaahdeen abu dujaana maanta calaamat almowt buu xidhay khalaas dagaalkii markuu bilaabmay ayuu isaga oo xaragoonaya ninka dhallinyarada siduu xaragoodaa dee ninkaa garanaya usqalqalloociyaa soo maa usasiyarta jibiyo saxaabadu markaasay yidhahdeen abu dujaana sidii mutakabiriintu u socdaa war dadkii kibriga badnaa sidoodiibuu u socdaa markaabay nebiga ku dacweeyeen yaa rasuulallah eeg siduu u socdo sidii mutakabiriintu u socdaaye markaabuu nebigu yidhi sii eegay nebigu abu dujaano xaragoonayo dagaalka kusii socdaa
هذا دجالك الرصاص ما هي إلا صعود رصاص تنبال يا مدافعنا ودجالك فولياشة دجالك بريء كي جيسياشة وها وقعنت على سقوط تجاي عمبارو يا ورن يا سيف يا مركز النبي يقولي صعدك أبو دجانة كل صعده إلهي والنعب يهاي لكن ما لهنا إلهي كجعل يهاي أبو كجعل صعدك ونك حدك والصعده قابك والصعده إلهي والنعب يهاي لكن سإلهي ما لها نوسه هل كانوا إلهي كجعل يهاي ده اللي يرني ماذا يقروح ذا يحرق ذا دين تكفي مدعم جماعة مالين لغين يسا هكا جماعة مركز لغين البادية الله بالله بيسكر عن وقت ولي بنين دعوة كو عصب ينين دعوة مدبدة كو سوجري أمير كي جماعة مركز يا مد اللي يرى أيول أدو أنا جاي راع أنت جماعة مركز اللغين يعني تولى إلى تولى اللغين يعني قرآن كيسكو صحانو دعوين كيسبرانو أحاديث تسحفت سيان شيخي بأمريكا يركي كويري حد كشقي ساعدو يركي بايدي حوا كما شقي بينك حد يران تعذيب برات ود مركز سوري ساسو شيخ وحن برتي ها اسكدا هاي ويدين مركز ما يشيء أنا قبل يران تيجي وقنت هسام برتي هذا محب برتي مركز شيخ وحن كشقي يجري وحن برتي ما نقدر ديس ما يشيء وحنا الجابلة أنا هقول جابلة ما تقنع سوق مقالة أبوه ينتون استاجو ضدك الجابده هو جوحة كجرا كسر أبوه شقة يدوا بشقة أبوه قاب كلا عقد الجابلها كجرة الله سارنا قناة وبرتبي هذا واحد نصاب حيبورينا توبت كذا ويا بشيء وصير مجيبك قفك لعقد كجرة مركز ها ذيك ويابي لا أذيك مسكوا حامد مركز إير لقيين بجماعة مالكم نستان مركز لكعاي أيوه مركز يركي بايد أمير ألا بتضع على سكان قاضي مي وقاضي كريه جدا مي هكان قاضي مي وير لقيين إلا أنتوا هكان قاضي إيدي بلهابو لعقتي وطي وذيك كسرنا نبي أقول سؤالية markay dhaxda marayaan buu ka yiri sheekh sahidaadii baljeebada ka baaro oo uu taabto halkee waa tan buu yiri hanixina ho goorma iga dhacday kaamay dhicina markaan alaabta ka qaadiyaan aan ku lahaa alaabtaada baan u socdo waan ka tartiibiyay dacwadu waa ajiib wallahi waa ajiib amalka dacwadu dad badan baa dacwada la yaabay dacwadu maanta ka hadlaynay Tufayl bin Amr ad-Dawsi magaalada Makuu soo galay shaacir gabayaya ayuu ahaa Quraysh baa jidka u fariisatay markaas la dareen galiyo lagu yiri magaalada Makka waxa ka soo baxay Muhammad oo dadka sixraaye hadalkiisa ha dhageysana dhagahaaga ka furayso cutub intuu qaaday baa la qutun ayuu dhagihiisa ka furay markuu dhaxda soo maray buu yiri nin caaqilo oo shaacir oo gabayaya ayaa tahay nin qaldi kan adigu ma tihiide ma dhagahaaga iska furtida dhagihiibu iska soo furay baa leeyahay marka magaalada soo galay dareen baaba galay marka wuxuu arkay nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo Kaabada agteeda salaad ku tukanaya dadku siday u socdaan si ka duwan buu nabigu u socdaa dadku siday u caabudayaan ilaahay ee shirkigooda ugu sugan yihiin si ka duwan buu nabigu ilaahay u caabudaya markaas su'aal fadhiistay buu yiri quraanku akhrinaya ba qalbigayga dhacay buu markaasaan isiri waniyo ما بدو تكتدو إنك أنا الله فريستيدو أد وريستي وحصحة هدو وضنا أد مقشد وحقلنا هدو شجعنا قلت كيسو أديك وحبك كان قادم أيه مرقاسا النبي قال الله فريس صلى الله عليه وسلم مرقاسا يقول إلى ما تدعو ذاتك محاد ويا محمدو مرقابو النبي قال ذاتك وحان ويا إني الله رب العالمين كلي عابدان وعبادة إلهي عتك لا لو ذا جن أصنام تانية قريها الشرك كان يكون جرانا إني كدح بحال dhiiga xaq darrada ku daadinayaanna inay joojiyaan qaraabada kale inay xidhiidhiso miskiinka iyo dadka ducafada iyo musaafirkana in loo naxariisto taas aniga la isoo saaro umada ugu yeedha marka Tufayl bin Amr ad-Dawsi uu islaamay maalmuhu marka nabiga la joogay suurada quraanka kamid ayaa la baray laakiin dareen baa ku dhashay dareen ummadeed dadkiisii buu ka dambeeyo gaalnimo ku dhacsan oo gaalnimo ku dhimanaya oo qoryo iyo dhagax ay sameeyeen caabudaya
markaa buu yidhi yaa rasuul allah nin dadkiisu aad u maqlaan baan ahee aniga tolkay ii dir buu yidhi diintii risaalada anaa kaa gaadhsiinay markaa buu nebigu yidhi waa hagaag ordo diinta gaadhsiiye inta aad iga maqashayna ordo adiguna gaadhsiiye oo u yaal markuu in yar dhaqaaqay buu soo noqdo wuxuu yidhi calaamo laygu garto inaan adiga kaa socdo ilaahay ii weydii buu yidhi waa karaamo markaa buu nebigu ilaahay weydiiyey ilaahoo karaamo lagu garto si buu yidhi wejigiisa intaasaa iftiimaysay habeenkiina way iftiimaysay baa la yidhi maalinkiina meel cadoo waxay noqoto jidhka bini'aadanka ka duwan markuu dhexdaa maraya buu fikiro wuxuu is yidhi haddaad maalin ku beegantid oo dee wejigaaga waa caddaan oo meesha waa ka duwan tahay waxay odhanayaan baras baa ku dhacday markuu ilaahyadeennii ka tego inkaartii ilaahyadeenna ku dhacday odhanayaane ilaahu nuurka halka aad ii gelisay jeedalkayga faraska aan la dhacayo ilaahu iigu bedel buu yidhi jeedalkiisiibaa habeenkii iftiimayay sida leyrhka u iftiimayey shalay buu islaamay durba ducadiisaa la aqbalayaa karaamana way ka daahirtay innagoo islaamnimadoo ku dhalanay wax karaamaa weli ma leenahay insha allah dhahada darigii hore la odhan jiray oo hebel baa karaamo lahaa oo keligii maxaa kaa karaamada saro adi karaamada kaa qaado shaqada ummaddu karaamada ku yeelanaysay ayaan maanta inaku aanan u kicin bay culimmadu yidhahdeen shaqada karaamada lagu yeelanaya waa maxay waa diinta inaad u gargaarto ilaahay baa le in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum haddaad ii gargaartaan baa ilaahay leeyahay oo diintayda u gargaartaan anaguna waa nii gargaari baa ilaahay yidhi ninka shalay buu islaamay maadaamuu nebiga uu ka socdo u leeyahay tolkay baan risaaladda aniguna gaadhsiinayaa isla markiiba ducadiisii baa noqotay mustajaabu dacwaad buu noqdo ducadiisii baa la aqbalayaa lanna iftiinkii jeedalkiisa loogu bedelay waddankii markuu dhex yimideen lagu soo yaacay aabbihii buu ku yidhi ilayka canni iga dheerow adoo gaal baa taana muslim baana ha ii soo dhowaan islaantiisiibaa ku soo oroday naa ha ii soo dhowaan adiguna waad islaan mushrikada ayaa tahay anna muslim muwaxida ayaan ahay iga dheerow buu yidhi ciyaalkiisiina sidaas in la eg markaasay yidhaahdeen kaama gu'i karno nin caaqila oo reerkayaga ninkii noogu sharafta badnaa baa tahee waa ku raacaynaa diinta aad noola timiday waa kugu raacnay aabbihii hooyadii walaashii xaaskiisa ubadkiisii baa soo raacay muddo badan buu ninkaasi qabiilkiisii uu dhex joogay dad kale inay raacaan way dhici weyday markaa buu ku soo noqday nebiga sal alla alay slam nebigoo jooga maka markaa buu yaa rasuul allah labayk dows reer dows tolkay reerkii aan ka soo jeedeed ii dirtay ilaahay amarkiisiina way diideen adiga inay ku rumeeyaanna way diideen dadkaasi waa dad cusaada way caasiyeen ilaahay rasuulkiisiiye habaar buu yidhi allaha baabiye markaa buu nebigu sal alla alay wasalam qibladuu nebigu u jeestay qiblada xaguu jeestay xaguu jeestay marka la ducaysanayo qiblada in la qaabilo ayaa sunnaa qalbiga in la soo xaadiriyo ayaa sunnaa tadaruc iyo khushuuc iyo maaragtaan dhul isdhig in la muujiyo ayaa sunnaa inaga maanta see u ducaysanaa waxaad arkaysaa mid ducaysanayo rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan kakaa albaabka ka baxayna sii eegaayo taa duco ma aha rabbanaa aatinaa fi dunya xasana warna hebel baa balkaan duco ma noqonaysa qibladuu nebigu u jeestay asxaabu rasuulillaahi madaxay qabsadeenoo waxay u malaynayeen inuu nebigu qoomka uu halaagayo habaarayo oo la halaagayo markaasina reer dows way halaagsameen walaakiin nebigu gacantuu cerka u taago wuxuu yidhi ilaahow reer dows soo hadee qalbigooga ilaahow adiga hayee ilaahow xagga khayrka u soo jiib ilaahow xagga ilaahay rasuulka u soo qaad ma habaartamin mabcuuth raxmad nabadgelyo ummadda bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan shakhsiga ugu naxariis badan buu ahaa nebi maxamed wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmad buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam daadna nebigeenna sal alla alay slam waa kii yidhi xadiis aniga ilaahay lacaan igama dhigin lacaanku waa kee ka ummaddiisa mar walba habaran igama dhigine nebi raxmada oo daaciya ummadda xagga alla ugu yeedhaya ayaa aniga ilaahay iga dhigay buu rasuulku yidhi daadna markaa buu nebigu isagiina waxau ka yidhi tufaylow adigana waxbaa kaa qaldana dhegayso markaad ku noqoto ee dacwaddii khayrka aad gaadhsiinaysid dadku ha ku jeclaadaan isjeclaysii ad adayga iska dhaaf
وفضيدي وبالشارع قلبك أفر أخلاق وناسد ولا نقو markii hore karaamo weydiistay karaamadu umadu kuma soo xanuuntay culimadu leeyihiin dacwadu markay manhaj nubuwa ay haysato ayaa ilaahay umada qalbigeeda soo jeediya oo ku noqday tolkii karaamadii hadda lama socoto laakiin waxa la soo siiyay duco qoomkiisa nabiga u soo duceeyay ducadii nabiguna waa u soo dhacdo waa loo aqbalay isagana waxa la yiri usluubtii dacwada aad u gaarsiinayso umada wax ka bedel baa lagu yiri markii hore adeeg baad la noqotay Soomaha هذا دبع سنان بالله نقول إنسان يجوجلاء يدبرن يجعله يمحبه يخلق ونكس سيد دور يسديت قيس وأبا هريرة وكم مديحي أيا إلهي قعدت سكوسو إسلامي مركز الصور رجبي وجيتو صوق هذه أي مقالة المدينة النبي قال له كان صلى الله عليه وسلم ساس صحابة الحلقة دين النبي قال قادين زمن والمدينة الركبة إلى هاي رجي دينتا ما أنت كشغيلها وإنك رجي دينتا أوكي لها وإنك رجي رسالة عالم كجرسين لها وإنك معلمها كبد النبي كويري نن أنصار يبو كيري إن أنت هذا يقولي أنيقا مركز ويري نكي أنصاري نعم وقرة عين بوي oo nabi Allah adiga ayaa ku heli kara buu adiga ayaa ku heli kara marka uu nabigu anigu mar rabiye waxaan u rabaa Julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada Madiina oo dhan guri walba laga sheekaysto la yaqaan dabeecadiisa oo dabeecad waxa lagu yaqaan xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenku la kaftami jiray markaas dadka Madiina oo dhan waxa isku sheegeen gabdhihiina Julaybiib ha iskaga dhisina من دبيعات دي سؤال فعنين ودمر كمالها اسكمن مرة يهدو دون الله كفتما مركوانين أخلاق حن ويان أخلاق دي ساسي أن وناكسنين والله كل شيء كيسان يا مدينة ما كل شيء كيسان وانك أنك النبي يقول لي أنك ري مدينة إن أنت هذه أنك سي مركز الصحابي يقول النبي الله هذيك ما إن أنت إذا أيابك وحلي كرا هذا هذيك تري سي وبالنعمة لهاي أنك يسيو إنها يكون ويكون راح يسنى يعني أنت يديو حاسدك كون نقطة هل بكيري مركز النبي يقول أنا مر بيه لكن وحنا الرب أبوي جليبيب بلدون يا جليبيب مركز سوري حتى أشاور أمها هو يدد بان كتلق لني يكاد بكيري هو يدد بان لا صوت شنية وحال الريم مدينة عرف دقن وحي لها يعني قبله هدي أي جاران دادي قبلها اللي قرسنة نيكا قبل دالي inanta dhalay intuu nabiga u yimaado ayuu oran jiray inantaydii way qaan gaadhay nabi Allah hadaad inantayda adigu aad doonaysidna waa ku diyaar hadaad cid kale u doonaysana waa ku diyaar dadka qofka ad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonata waa min as-sunnah weeyaan Xafsa bint Umar markuu ninkeedii ka dhintay Umar ibn Khattab intuu socday ayuu Uthman u sheegay ku yiri هذا دون تينان تيدا حفصة وانكون دسي مركز عثمان يدي وان صوف فكري سكون نقضي مركز يقول يا عمر وان فكري يا وحا يصوب بحدي سنة كان ما تينا ننقر سنة هاي سوقنا ولا لقرر عليها هو جزاك الله خير بوكيدي هذا مالين قالوا عمر سعدو أبو بكر بولاد دون تي حفصة يا أبا بكر الصديق هذا دون تينان تيدا حفصة وانكون دسي وانكون ضياء مركز أبو بكر وكأمس لماذا محو عمر إن أنت حفصة وعثمان يا عمر ويا أبو بكر وأبو بدقيا ما تقانا عرفي قبرقا مسلمين تو أي لهايان وحا كمدها إن أنتو هدي قادك دادي قبلها اللي قبور سنيي وحا أصوها صاوايا أبهد ولا الكيد أدير كيد يا أبتقيد هل كأنكو أن لنا سوء يقول أربحاني لنا يا أبا متشغية أوندي يا ولي بهيئتها أو شغية هيئتها وقال هيئتها خرج بدن بريها الموتى لا إله إلا الله سوء يقول ماها ألال إن أنت هذا وين يدبت أوصو بحض ماها وقرن في بيوتكن إن أنت هذا وين حق دم فرددا جلبابك أوه رأي قبضة مسلمات وأي حدا يسو وين يقول جوج نقطة يان باهي إذا وحيد دبت كيا لنا مركي أوبا هنتهي أما أبهد أما ولال كيد أما إن كيدا أما أدير كيد أبلا شيء أما أبتكيد هو يلا شيء
أما ولالكيد باسو كحين وسو راعيا لماذا ما هي وسو راعيا ماهن تسلط إيو سيطرين قبلها الله سيطرين إيو واختيارك اللقاء قادة يا همودن إني يا مسلمتي بل أدقو كو إلالينا يا وقارد غور كاقي وكي كو إلالينا يي أدو كا إلالينا يا عدوكو كا إلالينا يا توقتو كا إلالينا يا دادك مجرمين تو كا إلالينا يا فسقدو كا إلالينا يا سيدا لعقتا يا دايما كا ميل قالي يا لورديغو ميلان لأركين لوغو ريدو أيا قبدا مسلمة مؤمنة دا أي دين الإسلام ميل في عنو دكت هذا يدكو إلالينا يا إنك أنا ما أنت واحد لقى داعي دين الإسلام كدوم مرك اختيار كي بيك قادو أقل هذا فردي يا بيتي أقل كفردي شرفت هذا أقل كنا فردي ده كوكو فلان شرف بيكوت أقول كنا فردي ده صدّون دون ماها أبي بكر عمر يسقى أدون أوها سوين أنتيسي إن أنت هذا الشيء ذاتك الخير كتهم يسوع إن هذا بردك تانا عيب ماها ما أنت إنك حاجة نوع حلو أركع هذونيكو إن أنتي سو رجع أوير وصوها ساو وحلا يسألون بوسلية هاي ورمتو عقلوها يا ونوع عمينا يا ماي عمر باس عثمان وبندقي عثمان وجوابه أبو بكر بوم بندقي أبو بكر واقع مصي مدير كذب وحصودون حفصة رضي الله عنها نبي محمد باصودون عليه الصلاة والسلام لأن مركب النبي قرصه مركب قرقاس ودم هذي أي مالين دم بعمر يا أبو بكر با كلمي أبو بكر با هذا الكقاتو يري يا عمر ملها قلبك وحبادي يقول هيسا مرقاس ها أبو هيا ورتابان عثمان بندقي وي جواب وفي ويسيي أذكر واكو بندقي وأذكر مستي هاي أنا إماد أورن ما أنا إماد أورن مرقاس أبو بكر كويري أنا جوحان أوجا نبي محمد وحفص هذا الهيان أوجا مرقاس سرت النبي جاينا شيئان ديدنا هدو نبي وحفص ودافي لها وسكديني لهانا والله أنا كابورسل لها بكي ساسا مركا النبي كو أوجا ذي رير مدينة reer kar ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxa uu nabigu ku ogaaday baa la yiri nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nabiga u yimaado oran jiray yaa rasuulullah gabadhaydii way gaadhay daadii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nabigu marka u weydiistay ku yiri inantiina ii dhisa markaasuu nicma wa qurratu aynin yaa rasuulallah waa nicmad isheeduna way ku qabo way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nabigu ku yiri anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicadiisa markaasuu julaybiib haa u istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaabuu nabigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tiri nicama waquratu caynin waquratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tiri hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiina oo dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisamayna qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay markaasaa saxaabigii baa nebigu u yimid oo yidhi nebi allow inantii julaybiib waan siinay
guurkii uu julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuu julaybiib awaya markaasaa meydkiisi la doonto waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyd oo dul yaalla markaa buu nebigu yidhi wallaahi kaase julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay anna isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaa buu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqadda sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu cidhiidhi weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam raiisul munaafiqiin cabdullaahi bnu ubay bnu salool inankiisii baa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam markii laga soo noqday ghaswat alaxzaab markaasuu yidhi yaa rasuul allah aabbahay munaafiqnimadiisii caddaatay waxaan ka baqayaa aabbahay nin muslima intuu dilo ninkaa muslimka ee saxaabiga aabbahay dilay inay anigana gacan igaga siibato sidaa naar ku galaan ka baqayaa aabbahay kurkiisa anigaa soo goynoo kuu keeniye igu fasax buu ka yidhi aabbihiina waa ra'iisulmunaafiqiin weeyaan markaa buu nebigu yidhi may kugu fasaxi maayo buu ka yidhi waayo la odhan maayo saxaabi baa munaafiq dila la odhan maayo lagu sheekayn maaye waxaa lagu sheekayn saxaabadii muxammed baa islaynayso kurka iska jaraysa adigana waa aabbaha suxbaddiisa wanaaji buu ka yidhi u samafal annagana sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doona buu rasuulku ku yidhi muddo yar kadib ninkaa uu dhiman doonaa ra'iisulmunaafiqiin dadna markuu dhinto saxaabigii uu dhalay baa nebiga u iman doona wiilkiisa cabdullaahi baa iman doona oo nebiga ku odhan doona iigu tuko markaa cumar bnu khadaab baa ku odhan doona yaa rasuulallah munaafiqa ha ku tukane daac ila salaata aljanaasaha qofka lagu tukanayo waa ducayn qofka loo ducaynaya weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi cumar waan ku tukaniye iska daa buu ka yidhi markaa buu yidhi yaa rasuula allah ma ninka munaafiqnimadiisu ay caddahay qur-aankuna uu fadeexadeeyey maad ku tukanaysaa markaa buu yidhi yaa cumar aniga khiyaar baa ilaahay ii siiyo waa kii yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allaahu lahum khiyaar baa ilaahay aniga ii siiyo waa ka ilaahay igu leh haddaad doonta u dembi dhaaf dalab oo u duceey weeyaan haddaad doontana haba u ducayn haddaad kuwaa 70 jeer ilaahay aad dembidhaaf u weyddiisana loo dembi dhaafi maayo baa laygu yidhiye khiyaar baa laysiiyo khiyaarkaa horreeye han ku tukadee cumarow iska kaydaa buu nebigu ku yidhi nebigu waa og yahay ninkaa salaadda nebi maxamed uu ku tukanayo inaysan waxba u taraynin waa og yahay laakiin nebigu ayuu ilaalinayaa wiilkiisa saxaabiga ee jaliilka ee dharaariya habeen nebiga ag taagan ee diinta islaamka difaaceega dhiiggiisa ula diyaara inuu ku bixiyo kaabuu nebigu qalbigiisa dhowrayaa markaa nebigu ummaddiisa uu isku wadaa wuu ha ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana markaasuu yidhi yaa rasuul allah qabrigiisana noo raaco balkaalayo haddana halkaana nala dul joogso lacalla laga yaabaa duljooggaagaa ilaahay inuugu naxariista aabbahaye markaasuu raacay rasuulku cumar binu khadaab baa nebiga gacanta hor dhigoo yidhi yaa rasuul allah nimanka munaafiqiinta qabuurooga ha tegina ka joog haddaba markaa buu nebigu gacantii cumar iska qaado wuxuu yidhi cumarow khiyaar baa aniga ilaahay ii siiyee khiyaarka ha iga qaadine iska kaydaa buu nebigu ka yidhi cumarow uu tegey qabrigiina nebigu waa kor taagay waa u duceeyey uu ka soo noqday soo noqodku soo noqdaa nebiga qur-aanka ku soo degaaya oo la leeyahay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi innahum kafaruu billaahi wa birasuulihi wamaatuu wahum faasiquuna baa lagu yidhi maanta wixii ka dambaysa baa nebiga lagu yidhi kuwaa munaafiqiinta salaadna kuma tukan kartid oo uma ducayn kartid qabuurtoodana haskor taagin baa nebiga lagu yidhi
aayaadka qur'aankee soo degay iyo waxaa iswaafaqay tala bixintii cumar binu khadaab uu soo jeediyey maalinka intii ka dambaysay baa la yidhi cumar binu khadaab marka talada uu nebigu saxaabada uu shuurada uu tala gelinayo talada cumar binu khadaab uu dhiibtaa nebigu si gaaruu iskaga eegi jiray baa la yidhi limaada imaam suyuuti raximahullah kitaabu taariikh alkhulafaa wuxuu ku sheegay 15 tala bixin oo cumar uu ummadda u soo jeediyey tala ummadeed oo nebi maxamed uu u dhiibtay iyo qur'aankaa iswaafaqay baa lagu yidhi xijaabkaa ka mid a maqaami ibraahiim baa ka mid a aayaadka munaafiqiinta ka warramaya ayaa ka mid a 15 talo oo cumar uu nebiga u soo jeediyey iyo qur'aankaa iswaafaqay baa la yidhi intaa intay ka dambaysa hadduu cumar tala dhiibto nebigu talada cumar si gaaruu isha ugu hayn jiray baa la yidhi uu iman jiray aqalka caayisha wax la cuna ma yaallaan caayisha maya bay odhan jirtay markaa buu odhan jiray waa iska soomanaha iska daa xabsi uu tegi jiray wax la cuna ma yaallaan saaka maya waxa ma yaallaan rasuul allow waa soomanaha iska daa buu odhan jiray cunto haddii la siiyey cajabisana uu cuni jiray hadday cajab gelin weydana nebigu ma ceebayn inuu ka tegi jiray wixii cajabiye wixii loo sameeyo haddii shaygaa uu cajabiyo ma odhanayn haddii shayga la sameeyona ma odhanayn maxaa sidan u samayseen shayga aan loo samaynna ma odhanayn maxaasaa u samayn weydeen ma dagaalamayn ma cadhoonayn hal mar bay dumarkiisu nebiga ay intay isku yimaadeen yidhaahdeen muu nebigu biilna siiyo masaariif waatan dawladda islaamku dhaqaalo yeelatee wuu ka hijrooday nebigu dumarkiisii jibriil baa u yimid oo waxaa lagu yidhi reerahaagii adduunyaa soo gasho adduunyay ka fikireene ka dheerow baa lagu yidhi 22 cishuu nebigu miskiidka iska galay baa la yidhi ilaa magaaladii madiine war waxaa galay la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furay cumar baa socday inantiisii xabsuu u tegey aabba nebigu muu ku fura maya nama furin maxaad samayseen wallaahi waxaan samaynoo dembi weyn annagu ma garanayne waan isku imannoo waxaan soo hadal qaadnoo nidhi waatan dawladda islaamku dhaqaalo yeelatee muu nebigu masaariif inoo qor haddeetoole bal masaariifii robiila abuubakar baa socday inantiisii caayishuu u tegey maal lagu furay maylayma furin aabbo maxaa dhacay nebigu wuu niga hijroodaan maqallee waxay tidhi nebi allow aabbo dembi kale ma samayne waxaan isnidhi keliya haddaan haweenkii nebiga nahay dawladdii islaamku waata dhaqaalo yeelatee xoogaha masaariifa nebigu meel haynii saaro ma intaasunba haa waa intaa deedna markaasaa nebiga aayadahan ku yaalla suurat alaxzaab aayaatu takhyiir ee kala doorashada ee la leeyahay nebi maxamed ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro dhinaca iyo adduunyadiiyo ziinadeeda oo dhinaca kala doorta aayadaha ka warramaya kala doorashada kala doorbidashada ayaa marka nebigeenna ku soo degay calayhi salaatu wasalaam waxau nebigu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu nebigu ka bilaabay faatuma almu'miniin caaisha radia allaahu canha taasuu nebigu reerihiisa ugu jeclaa camar binu caas baa weyddiiyey nebiga su'aashaas camar binu caas baa saxaabada ku odhan jiray saxaabada nebi maxamed anuu iigu jecel yahay ku salliya rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasaa lagu yidhi war ka daa may anuu iigu jecel yahay war ka daa may waan weyddiin salaaddii markii laga baxay buu camar istaagay wuxuu yidhi yaa rasuula allah dadka ayaad ugu jeceshahay ii sheeg markaasuu nebigu yidhi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi innaka ma dhici kartaa ninku inuu ragga horteeda ku yidhahdo waana dumarkayga islaantaasaan ugu jecelahay waad ka xishoon laakiin ceeb maaha nebigu uu sheegay mujtamacuu ka hor sheego wuxuu yidhi dadka waxaan ugu jecelahay caayisha markaasuu yidhi maya dumarkaaga maaha ragga markaasuu yidhi aabbaheed oo kuma abubakar markaasuu haddana markaasuu yidhi cumar marka camar binu caas saxaabadiiba eego waan iska aamusay buu yidhi maxaad u aamustaa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan ka baqay inuu nebigu iga dhiga koogu dambeeyo buu yidhi marka aamuskaa la ii qaatay buu yidhi uu iska aamusay markaa camar lidaalika nebigu caayishuu xaasaskiisa ugu jeclaa mas'aladdaana kala doorashada nebigu waxau ka bilaabay cidduu xaasaskiisa ugu jeclaa wuxuu yidhi caayisha soo fadhiiso aayadahan qur-aankaa dusheeda ku soo degay
waa kala doorbidasho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca kalena adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro weliba inan yar baa tee go'aan qaadashada ha ku degdegine tala haddaan ka bixiyana waxaa ila quman inaad aabbaha abiibakar iyo hooyada aad la soo tashato markaa bay caa'isha tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada ayaan aabbaha iyo hooyaday ka talagelin may ka talagelin maaya bay ku tidhee ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhirada ayaan doortay maanta intay ka dambaysana adduunya dambe kugu hadal qaadi maaya bay ku tidhi markaa buu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam markaasay ku tidhi nebi allow sida aniga aad ii weyddiisay soo xaasaskaagana u weyddiin maysid markaa buu yidhi haa iyakana waa ku socda adaa kaa bilaabay waxay tidhi haddaba anigu mawqifkayga aan doortay adiga ha iiga sheegina iyakana weydii bay ku tidhi taladooda halkaa markaa maseer yar baa ku jira soo maa markaasuu nebigu intuu qoslay buu ku yidhi wallaahi hadday ayaku i weyddiiyaanay igu yidhaahdaan caa'isha ayay dooratay anna ka qarin maayo buu rasuulku yidhi yacni siday adiga wanaag iyo janno kuula rabaan iyakana ula rabaa janno weeyaan waana imtixaan arrintu waa ikhtibaar weeyaan oo la leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisii iyo jannadoo dhinaca iyo adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca kala doorta waa khiyaar cajiiba waa imtixaan weeyaan ikhtibaar markaa buu nebigu leeyahay caa'isha hadday iyakuna ii weyddiiyaanay igu yidhaahdaan caa'isha ayay dooratay nebi allow way og yihiin inuu nebigu caa'isha uu jeclaa iyada ka soo bilaabayo aniguna ka qarin maaye wallaahi waan u sheegi buu ka yidhi cishra saasuu nebigu dumarkiisa ula dhaqmaayey ghaswatu khaybar markii dagaalka lagu qaadee lagu duulay gabadhii ugu quruxda badnayd markaa ayay nebiga u dooreen asxaabtu u doorbideen safiyata bintu xuyay radia allaahu canha ummulmu'miniin bay yidhahdeen nebi allow tan adigaan kugu deeqnay qaada bay ku yidhahdeen way qurux badan tahee markaa buu nebigu yidhi wallahi waad ii garateen buu yidhi tii ugu qurux badnayd dadka waa hagaag caa'ishuu nebigu u yeedhay xabsa uu yidhi caa'isha iyo xabsa kaalaya gabadhana laysiiye dadkii la soo qafaashay baa layga soo dhex doortee caroos baan he ii soo diyaariyey buu yidhi ordo ii diyaar garaya reerihiisa nebigu ma dhaqaaluu ku wada mise akhlaaq badii sheega yaa ma dhici karta waa waxaad innaga zamankeenna waa mustaxiil inuu ninku labadiisa dumaruu qabay uu ku yidhaahdo naa gabadh yar baa laysiyoon guursadee bal ii soo diyaariya way adag tahay sow maaha waxau nebi maxamed reerihiisa ku maamulaya waa akhlaaq weeyaan waa khuluq lacag ummadda laguma maamuli karo reere lacag laguma dhiqi karo reeraha waxaa lagu dhaqaa waa dhaqanka wanaagsan weeyaan lidaalika nebi maxamed sal alla alay slam mahalu laclaa buu dhinac walba ahaa way qaadeen habeenkii bay u diyaariyeen salaaddii cishaay markay gaadhaa saxaabadu nebiga soo gelbiyeen markii aqalkii loo dhowaaday buu nebigu saxaabadii ku yidhi war dee reerkaygii baan u tegiye iga hadha buu ku yidhi markaas innakana maasha allah dee aroosyada zamankeennan ilaahay haynoo dembi dhaafa bas bal arooska nebi maxamed dhibyaridiisa eega caroosadiinna labadana u diyaarinaysa xabsa iyo caa'isha isagiina salaaddii cishaay markuu saxaabadda soo tujiyey hareeraha ka soo mareen aqalka markuu u soo dhowaadayna iyakiibuu la kaftamo wuxuu ku yidhi war dee caroos baanee reerkaygii baan u tegiyey dee maxaad iga daba qabanaysaa niga hadha buu yidhi deedna markaasay qoslayna xishooda inay ka hadheen caa'isha iyo xabsa ka soo baxay markaa aqalkii markii nebiga maqlay inuu soo socdo markaasuu yidhi haye bal warrama maxaad aragteen caa'ishaa tidhi dee maxaan aragnay yahuudiyad baan aragnay oroda u teg bay ku yidhahdeen way qurux badnayd baa la yidhi way ka wada qurux badnayd markaa weliba xabsaa hadalla adag ku sii hadashay markaa buu nebigu ka daba hadlo yidhi xabsa itaqi allaah ilaahay ka yaab ma cadhoon ma dagaalamin ma qaylyin bal siduu nebigu ula dhaqmay reerihiisa wuxuu yidhi xabsa caayisha gabadha waa muslimad way islaamtay ilaahay ka baqa markaasay leeyihin waa yahuudiyadada u teg bay ku yidhahdeen markaa buu nebigu u soo galay calayhi salaatu wasalaam maalmihii carooska ahaa maalintiina saxaabadu nebigu la joogaa dumarkaa markaa u yimaado markaa gabadha way u weheliyaan oo waa u sheekeeyaan maalin maalmaha ka mida buu nebigu u soo galay safiya iyadoo ooyeysa markaa buu nebigu ku yidhi safiya maxaad la ooyeysaa ii sheeg waxay tidhi yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood dhib bay igu hayaan aniga waa teeyetee caa'isha iyo xabsa oo maxay leeyihiin dee waxay igu yidhahdeen mar walba yahuudiyad baa tahay
dee markaa buu nebigu ku yidhi ayakuna maxay leeyihiin de annaguna gabdha carabiyada gabdha carab baan carabiyaad baan nahay annagu adiguna yahuudiyad baa tahay markaa buu nebigu ku yidhi dee adaa ka nasab fiicane haddii xagga nasabka la eege adiga aabbaha waa nebi haaruun binu nebi haaruun bay ku abtirsanaysay baa la yidhi aabbahaa waa nebi adeerkaa waa nebi ciise nebi muuse zawjkaagu waa nebi maxamed adaa ka laandheeraysan buu ka yidhi ee markay kuu yimaadaan iska celi saa ugu jawaab maalin dambuu nebigu yimid dee safiya bintu xuyay oo aad u faraxsan bal warran waxay tidhi maanta dumarkaagii taan ku dhigay waa la yaabay tidhi oo maxaad ku tidhi dee kelmadday igu odhan jireen bay iila yimaadeen yahuudiyad markaasaan ku idhi naa yahuudiyaddoon baad igu haysaane aniga aabbahay waa nebi haaruun calayhi salaam baan ku abtirsadaa adeerkayna waa nebiyullaahi muusa calayhi salaam waa kaliimullaah odayguna waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bal middiinna intaasoo nebi kulansatay halkaas soo dhigaan ku idhay tidhi sheegaan ku idhay tidhi markaasay afka qabsadeenoo way iga yaaceen bay tidhi maanta halkaa hundee ka wad buu nebigu ku yidhi saa dumarka iskaga celiya yani maca xayaat alcishra balag nebigu siduu dumarkiisa u kala badbaadinayo eeg waan run waxuu nebigu ku hadlaayo qofka nasabkiisu wuxuu qiimo ku yeelanayaa inna akramakum cinda allaahi atqaakum muuse calayhi salaam nebi muuse ayaa arkay dhagax dhulka dul yaalla oo biyana ka soo baxayaan markaasaa ilaahay nebi muuse wuxuu maqashiiyey xiin dhagaxa ka baxaya xiin guux markaa muuse calayhi salaam baa yidhi yaa rabbi ii idan buu yidhi halla hadle dhagaxii baa laga hadliyey nebi muuse dhagaxii la hadloo ku yidhi xaad la ooyaysaa balii sheeg biyahan kaa socda maxay yihiin markaasuu yidhi yaa muusa waxaan la ooyayaa waa ilaahay cabsidiisa naar baan ka baqayaa waa dhagax binasi alqur'aanna ilahay baa ka ku sheegay aayadda nii akhrinayay wa inna minha lamaa yashaqaqu fayakhruja minhu almaa dhagaxda qaar baa dildillaacaya oo maxay la dildillaacayaan ilaahay cabsidiisa la dildillaacayaan deedna biyaha ka soo boodaya markaa waa dhagax markaasuu nebi muuse ku yidhi waa maxay biyahan kaa soo baxaya markaasuna waa oohin maxaa la ooyaysaa ii sheeg naarta ilaahay baan ka baqayaa buuri wuxuu yidhi adigu mukallaf ma tihid dhagax baa tahay jin iyo insi baa naarta lagu gurayaaye adigu dhagax baa tahay maxaad la ooyaysaa yaa muusa miyaanad maqal waquuduha annaasu waalxijaara in naarta jahannama dhagax iyo dad lagu hurin doono miyaanad maqal markaasuu yidhi haa dee marka la hurinayana naarta dhagaxda yaryar baa lagu guraa buhi kuwa yaryar baa lagu guri doonaa sida xaaba marka la doono in la shido kuwee lagu horraysiiyaa cawska yaryar markaa buu la hadlo yidhi man anta aduu ayaa tahay ii sheeg muusa kaliimullah baan ahay muusa kaliimullah baan ahay markaasuu yidhi xaq ilaaha kaliimkaa dhigayd ilaaha kaliim hadalkiisii ku maqashiyaan kugu dhaariye ii shafeecad qaado ilaahay iiga erga dalab in ilaahay naarta anigu iga badbaadiyo markaasuu nebi muuse ilaahay u baryey ilaahay baa la soo hadloo ku yidhi u bishaaree naartu waan ka badbaadinay isaga markaasuu u sheegu abshir adiga ilaahay naartii waa kaa badbaadiyey muddo kadib buu haddana nebi muuse calayhi salaam dhagaxiyo sidii uunu guuxaaya oo biyihiina ka socdaan buu halkii ku soo maray markaasuu la hadlo wuxuu ku yidhi waa kii naartii lagaa badbaadiyey kuu shafaacad qaadee kuu warramee sodiga weli oohintii wada maa markaasuu yidhi maalinkii hore oohintaan ooyayey naarta cabsideedaan la ooyayey hadda waxaan la ooyayaa buu yidhi waa shukran ilaahay mahadnaqiisaanu la ooyayaa buu ka yidhi farxadda marmar qofku lama ooyo ibraahim aladham allaha u naxariistay ayaa nin gaala oo ay wata ayaa u yimiday markaasaa lagu yidhi sheekhaasi waa sheekh ibraahim baa la yidhaayo waa nin caabid oo rabbaaniyo ilaahay buu ku xidhan yahayo dadka muslimiinta agtoodana qiimo weyn buu ku leeyahay ninka yahuudigii baa soo qaaday aygiisii buu soo qaaday baa la yidhi markaa buu sheekh ibraahim aladham oo halkiisii fadhiya buu ula yimiday sheekh ibraahim adigaa lagu yidhahdaa markaasuu ha ibraahim baa la yidhaha ibraahim adham ha ma adiga ahaa su-aal baan ku weydiina maad ka xanaaqi ma weydii insha allah weydii wuxuu adiga iyo aygayga midka fadli badan buu ka yidhi
nin gaalo oo aan isku diin ahayn hadduu hadalka kugu odhan lahaa adiga ka waran see yeel lahayd soo dagaal maha soo maha de sheekhii dhulku eegay wuu fikray wuxuu yidhi kolkaan dhinto ee laysoo saaro banka qiyaame haddii kitaabkayga gacanta midig layga siiyoon janno galo maalinka aygaaga anaa ka fadli badan buu ka yidhi laakiin kolkaan dhintay buu yidhi ilaahay maba qadaree haddii kitaabkayga gacanta bidix layga siiyo naar laygu tuuro aygaagaa markaa iga fadli badan buu ka yidhi uuna iskaga dhaqaaqay ninkii aygii intuu ka tegey ayuu sheekhii intuu raacay buu ku yidhi ashhadu waxaan marag kaaga dhiganaya adigana ilaahay hortiisana maragaad iga noqotaa akhlaaqda aad igula dhaqmayso waa akhlaaqdii ambiyada calayhim assalaam halkii buu ninkay ku islaamay akhlaaqda wanaagsan waa halka diinteenna islaamka ugu sarraysa weeyaan waana meesha la doonaya muslimiintu nebiga inay kaga daydaan sal alla alay wasalam siduu nebigu reerkiisa ula dhaqmayey akhlaaq wanaagsan istawsuu binnisaa'i khayra khayr buu nebigu yidhi dumarkiina kula dardaarma khayr ku ogaada mar walba asiiraat ilaahay baa aqalada niigu dhex xidhay meel kale u dhaqaaqi maysa aday kuu fadhida aqalkay ku sugaysaa ubadkaagana way kuu korinaysaa adigana way ku raalli gelinaysaa iyadoo haddana hawshaa dhan qabanaysa ayaa gabadha muuminadda haddana guriga dhexdeeda ilaahay ay ku adeecaysaa markaa buu nebigu odhan jiray saxaabadiisa waxaa igu maqala rag reer madiinaha xaasaskooga inay dilaan laakiin waxaa nii sheegayaa buu nebigu yihi raggaa dumarkooga dilaaya kuwa inigu khayr badan ma aha buu rasuulku yidhi kuwaase khayr male buu rasuulku yidhi kuwaase khayr ma leh zayd ibnu sucna ninkii la odhan jiray caalim buu ahaa xabr caalim yahuudeed buu ahaa nebigaa dayn ka qaatay calayhi salaatu wasalaam xilligii daynka lagu ballamay in la celiyo iyadoo aanan la gaadhin ayuu ninkaasi nebiga fursad buu la eegtay fursad caynkeeya saxaabada nebigu isagoo hareeraha ka socdaan oo suuqa magaalada madiine ay dhex marayaan ayuu nebiga xagga dambe intuu kaga yimid buu nebiga go'isii hunguriga kaga qabtay ilaa nebigoo indhuhu casaadaan cumar binu khadaab baa seefta galka ka saaray markaa buu ninka yahuudiga hadlo wuxuu yidhi yaa muxamed haddaad tihiin buu ihi nimankiinan carbeed ee quraysheed in badan baan nila noolaynoo nila mucaamaloonayno xaqa bini aadanka aad ka qaadataan ma soo celisaane aniga xaqaygiisii buu ka yidhi markaa buu nebigu sidaa u dhoolla caddeeyey cumar binu khadaab baa seeftii la soo baxay oo yidhi yaa rasuul allah kaafirkan yahuudiga qoortaa ka gooyey igu fasax markaa buu nebigu yihi cumar may seeftaada galka ku cesha buu yidhi soo dhowow cumarow sidaa si ka duwan ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu yidhi inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynka in laguu celiyo laysku ogaa maalmo ayaa ka dhimana dee ha gaadho anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee daynka dadku kugu leeyihiin dee waxooga iska sii laakiin cumarow sidaa kaamaan helina midibaad seef baad la soo baxdo waad ka nixisee 80 saacoo timirana waa intuu igu leeyahay sii 20na ugu dar buu yidhi waa intaad ka nixisee gaalada ayaa imika dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamka boqolkii 90 diinta islaamku waxay ku fiday khuluqun xasan dabeecad wanaagsan dulqaad badan naxariis badan sabir badan duco badan dadaal badan oohin badan asbaabtaa buu nebigu risaaladiisa ummadda ku gaadhsiinayey cumar binu khadaab ninkii buu kaceeyey baytalmaalkii buu keenay intiisii markuu siiyey buu 20 kalena ugu daray waa kana qaado u dhaxay ninka yahuudigii war intan anu malihii buu ka yidhi intan aniga nebiga amar igu siiyey inaan kuugu daro waa biiro oo maxaa lagugu biiriyey sababtaan kuugu biirinina waxa weeyaan waa seeftii ay kuula soo baxeen kaa nixiyey buu nebigu igu yidhi ugu abaalgud intaas ugu abaal celi markaasuu ninka yahuudigii alaabtii oo dhan intuu dhulka dhigay buu yidhi cumarow zayd binu sucna ninka la yidhaha ma maqashay markaasuu yidhi ma ninka caalimka yahuudeed haa ma ninkaabaa tahay haa ninkaa baan ahay oo adoo nin caalim ah oo diintii hore towraadna wax ka yaqaana oo towraadna weliba lagu sheegay nebiga sifaadkiisa iyo inuu imanayo maxaa kugu kalifay nebi maxamed jidka dhexdeeda weliba iyadoo aanan la gaadhin muddadii daynka in la kala qaato lagu ballamay
إلا دينك وقت بوليه شروط بودينك ليه لو كلا قاطع آيات القرآن كأقول دير دينك كور رميسا يدون حل جيل لجاري محاد نبي قصدا وقول بيسيب كويدي صفات النبي يد الله وش جاي أردن محمد وانكو أركبيدي إلا الله بمويانه لبدا صفان النبي محمد كما سو ظاهر كريسو إلا لا تاب مويانه صفاته كوباد وحويان جاهلين تمركي حقي سأي كحد قدبان نبي محمد عليه الصلاة والسلام جهل قال له جي سنايو جهلده أي حقي سكحد قدبيان دول قاد بالنبي قال زيادة ما بعرض بودي وصفات النبي يدعو إليهن عرض النبي يد القاد كوغانا مركز لسوق ياسو وحق غالب أوسر يد القاد كوغا سرية دلقاد كوغا شهادتين كإيقام قلبي هرت هذا كل غنية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سقو إسلامي وعمر وقعنتها يو نبي أو كان النبي قرتي سنة وكو أشهاتي